wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in miino ay kula kacday gaari dad shacab ay saarnaayeen oo ku socdaalayay deegaanka Kudkudaaley oo hoostaga degmada Ruunirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gaarigan oo ka mid ah gawaarida ay ku safraan dadweynaha ee iskaga goosha magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka ayaa basbeelay kadib markii ay miino dhulka lagu aasay la kacday. xogaha aan helnay waxa ay sheegayaan in gaarigan uu shalay galinkii dambe ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeday magaalooyinka Masagawa iyo Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi, waxaana wararka aan helnay ay sheegayaan in 7 ruux ay ku geeriyootay halka 4 qof oo kalena ay ku dhaawacantay. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dawladda oo ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay deegaanka Kudkudaaley ee gobolka Shabeellaha Dhexe. kooxda Al-Shabaab ayaa xilliyada qaar sidaan oo kale jidka ku aasta miinooyin ay sidaan oo kale ugu waxyeeloobaan dadka ku safra wadooyinka dhaadheer isku xira magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka.